qoyiga ku taala waanu leenahay xidigtan waa xidig sixira kelmadii tawxiidkan uu la hoos doonanay Sufyaan waxa uu keenay xaqiiqooyin iyo cadaymo waxana uu albaabada u furay hadduu fiirso cid kasta oo dood ka qabta oo cilmi iyo aqliba kula doodaysa ilaa haddana lama hayo waaxid Soomaaliya oo u bareera in uu arrinkaas kala doodo oo uu kala fadhiisto oo uu badka iskeeno waxay ku tusaysaa taas dabcan xogta uu keenay inay tahay xaqiiqo wax lagu jabiyaanay jirin aan ka hayn suuxisada dusha laga mudo markaa waa in isaga sumcadiisa dhulka lala galaa sumcadiisa marka la dilo cid kasta oo aan doonayn inay fikradiisan qaadataa intaasay ku meeraysanaysaa dad buu laayay bari buu qof dilay halkan uu riyo ku dilay magacana la oran jiray kan uu bedelay waxa laga baxsanayaa fikradan in la qaato saxda war ilaahay subxaanahu wa ta'aala manhaj buu inoo dejiyay marka qof uu arrin idin keeno in jaa'akum faasiqun binaba'in fatabayyanu iska hubiya marka uu qof arrin idin keeno ulhaatu burhanakum waxaad ku tirahdeen cadayntii ninkeena Sufyaan Sheekh cadayn buu keenay wuxuu keenay xeerar buu keenay wuxuu keenay taariikh wuxuu keenay xog wuxuu yiri wakaase qof kasta oo Soomaaliya oo si cilmiyeysan u doonayeen inuu arrinkan uga doodo oo arrinkayga soo horjeeda badka hays keeno ilaa hadda waaxid Soomaaliya lama hayo laakiin ina maafka loo buuxiyay baa marba halkan nin buu dilay bari buu wariye dilay halkan la wareegaalaysanayeen waxaas qof kasto aqli laho si caadi u fikraya way caddahay ninkaas inuu fikradda ku saxsan yahay liqa qodobka Sufyaan iyo fikradda